shuute ayaa ka dalbaday bulshada ku dhaqan degmada wallaweyn inay nolol ama geeri ay ku keenaan qofkii ka dambeeyay colaadii ka dhacday degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose. faahfaahinta warkaasi Yasin Loy ayaa eegaya. degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose waxaa ku sugan saraakiisha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya iyagoo halkaasi u tagay wax ka qabashada dilalkii aanooyinka qabiil la xiriiray ka dhacay degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose. magaalada waxaa ka dhacay kulan dhexmaray odayaasha dhaqanka degmada wallaweyn iyo saraakiisha maxkamadda ciidamada qalabka sida iyadoo saraakiisha maxkamadda ciidamada ay sheegeen in tallaabo laga qaadi doono dadkii ka dambeeyay dhibaatadii ka dhacday degmada wallaweyn. gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Xasan Cali nuur shuute ayaa sheegay in ciidamada iyo saraakiisha ciidamada danab ay amar buuxa u qabaan in nolol ama geeri ay ku keenaan dadkii ka dambeeyay dhibaatadii ka dhacday degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose. waxa uu hadalkiisa intaasi ku daray in haddii la keeno dadkii ka dambeeyay dhibaatadaas iyaga oo meyd ah ay cadeyn doonaan isla markaana uu waday dhibaateynta dadka Soomaaliyeed iyo hantidooda. ugu dambeyn waxa uu sheegay in aanan looga hari doonin cid allaale cidii ka dambeysay dhibaatadii ka dhacday degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose. dhammaan ciidanka danab ay waajib ku tahay inay tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadaan. degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose waxaa ka dhacday dilal la xiriiray aanooyin qabiil iyada oo ay dhaceen dhacdooyin argagax leh oo ay ka mid ahaayeen in qof la gowraco ama qof inta la dilo kadibna meydkiisa la gubo. gudoomiye shuute oo fideenada la hadlayna waxa uu yiri maanta aan anaga u imaanay wixii ka dambeeya ciidamada iyo saraakiisha danab waxay amar u qabaan oo amar maxkamadeed u haystaan qofkii muwaadin Soomaaliyeed naftiisa iyo hantidiisa dhibaateeya wixii maanta ka dambeeya inay asaga iyo cid difaacaysa nolol iyo geeri toona ku keenaan. waxaan ballan qaadanayaa xitaa hadaa geeri ku keentaan inaan ku dul akhrino inuu dhiigiisa hadur ahay oo asaga dhibaatada waday inaan ku dul akhrino. taas inaan gaarsiisaan dadka hala gaarsiiyo in aan cid dhibaataysa looga hareynin. saraakiishuna waxay ku amran yihiin ay ku amar u haystaan in ay soo qabtaan cid walba oo muwaadin naftiisa iyo hantidiisa dhibaataysa. hadalka gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Xasan Cali nuur shuute ayaa imaanaya kadib markii dowladda federaalka Soomaaliya ay ku amartay inay tagaan degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose si xal looga gaaro dhacdooyinkii qariibka ah ee ka dhacay degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose. Yasin Loy, Radio Wadani TV.